halka la sheego 2022 March 24 ilaa 27 waxa lagu dilay 87 qof ayay kooxaan gaangiska ku dileen. laakiin kooxaha waxa soo afjaray nin dhalinyaro ayaa soo afjaray oo da'diisu 44 jir tahay. Salvador ayaa hadaadan aqoon waxay ku taala qaaradda Ameerika si gaar ah koonfurta Ameerika. hadda waddanka Salvador waa waddan dhibaato badan ka haystay kooxaha gaangiska si gaar ah laba kooxood oo la xidhan jiray MSTD la odhan jiray iyo koox la odhan jiray Aydin Street la odhan jiray. labada kooxood ayaa waddanka dhibaato badan bay ku haysteen cashuurana dadka way ka qaadi jireen. waxaa qofku wuxuu ka qaadi jiray dadii Roma ayuu ka qaadi jiray oo haday bixin weydo labada gacmood ayuu ka jari jiray. dhibaato noocaas ayay dadka ku hayeen. waxa la sheegaa 100,000 qof ee waddanka u dhashayba inay 100 qof ka dili jireen. waddankan ayaa lagu tilmaamay caasimadda dilka. laakiin hadduu qof mabda' la yimaado oo go'aankiisa aan marnaba ka noqonayn waxaasoo dhan soo afjari karaa. waa siduu sameeyey ninka la yidhaahdo Nagib Armando Bukele la yidhaahdo. ninkan ayaa asalkiisu wuxuu yahay Falastiini waana Falastiiniyiinta Kiristanka waxaana yaashii ay ka tageen Falastiin waxaanay degeen waddanka la yidhaahdo Salvador. haddaba ninka la yidhaahdo Nagib la yidhaahdo ee waddankan hadda madaxweynaha ka ah ayaa wuxuu ku dhashay waddanka Salvador 1981 waxaanu ku barbaaro wax ku bartay waddanka. haddaba 2019 wuxuu isku sharaxay madaxtinimada dalka Salvador waanu ku guuleystay. markuu xilka la wareegay dhibaatadii wali way taalaa oo 2022 bay ugu darnayd. March 24 ilaa 27 nimankii gaangiska waxay ku dileen 87 qof ayay ku dileen. waana ninkan maalintii go'aankii uu qaatay uu soo kordhiyey 5 sharci waxaanu haddaba ninkan soo kordhiyey 5 sharci taasoo soo afjaray nimanka gaangiska ee dhibaatada waddanka ku hayay. sharciga koowaad ayaa wuxuu yahay inuu waddanka xaalad emergency la geliyo waana la geliyey. sharciga labaad ayaa wuxuu yahay in la xidho cid kasta oo looga shakiyo gaangis iyadoo markaa la xidhay 70 ilaa 80 qof. waa ta saddexaad in la kordhiyo muddada xabsiga uu ku jiray ninkan gaangiska marka la soo xidho. waa ta afraad in la dhiso xabsiyo waaweyn la dhiso. waa ta shanaad in la kordhiyo ciidamada militariga ee jooga waddanka gudihiisa iyo magaalooyinkaba. shanta markuu sharci soo kordhiyey waxa la xidhay 70 ilaa 80 qof. waxaana hadda haddii adeegto magaalooyinka nadiifiya oo goobaha iyo beeraha ka shaqeeya kuwii shalay toole dadka gacmaha ka jiray. wuxuu ku guuleystay inuu dib u soo celiyo waddanka nabadiisii. waxaanu heer u gaaray inuu madaxweynaha Mareykanka inuu heshiis kula galo inuu dhanka ka caawiyo maxaabiista oo maxaabiista Mareykanka qaarkood in la keeno waddanka Salvador. sidoo kale wadannada jaarka ayaa ku invitation u sameeyay markay xabsiyada waaweyn sameynayaan sababtoo qaaradda waxay aad uga caawataa nimanka gaangiska. haddaba halkaa kuma joogsan hay'adihii xuquuqul insaanka ayaa waxay dhaliileen ninkan iyagoo ku sheegay inuu dad badan iska xidhay. laakiin wuxuu soo qaatay sheeko aad u xikmad badan oo wuxuu yidhi waxa laga sheegay inay jirtay waddankan u dhalatay Salvador oo islaanhay oo iibin jirtay waxyaalaha macmacaanka ayaa inankeedada Roma u ahayd ee walaalkeed dhalay ayaa wuxuu ku yidhi keen cashuurtii gaangiska waanay diiday labada gacmood baa ka jaray. wuxuu yidhi markii islaanta labada gacmood ka jaray maxay hay'adahan xuquuqul insaanku ugu doodi waayeen. wuxuu sheegay in nimankaasu inaanu marnaba naxariis aanay lahayn taasna hogaamiyuhu hadduu go'aan qaato waddankiisa wuu bedeli karaa. bal maxay kula tahay fikradaada commentiga inoogu reeb.